munaasabada lagu shaacinayo bilowga dhismaha wadada isku xidhi doonta degmada Balle Cabane iyo caasimadda Hargeysa oo munaasabad loogu qabtay deegaankaasi waxa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad salaadiin ugaasiyo iyo madax dhaqameed kala duwan oo kamid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxayna ka warameen muhiimadda ay wadadani leedahay iyo bulshadu sida ay ugu baahan yihiin waxayna bulshada Soomaaliland qurba joog iyo qulqul joog u soo jeediyeen ka qayb qaadashada dhismaha wadadaasi oo muhiimad gaar ah ugu fadhida bulshada ku dhaqan deegaanka Balle Cabane oo ka tirsan gobolka Hawd wadada la dhagax dhigayo aynu soo baxnay hawsheeda Allah idin ku xiltiro Allah idin la qabtaan leh inaynu ku tacabno insha Allah bismillaahi kariim wadada annana aanu idin kula tacabno taanu dhaqanka nahay salaadiinta uqaasha dadweynaha waxaan leeyahay si fiican ha looga qayb qaato gudaha iyo dibadba wadadii Balle Cabane ilaa Hargeysa isku xidhaysay waa muhiim in deegaamada aynu ku dhaqanahay iyo caasimadda la isku xidho oo wadooyin aynu sameeyno sidii wadooyinka hore Soomaaliland uga qayb qaadanaynay wadadana ha looga qayb qaataan leen haday tijaarta tahay iyo haday qurba jooga tahay iyo haday qulqul jooga tahay iyo haday dadka xoolo dhaqada tahay iyo haday shaqaalaha tahayba waxaynu u baahanay dhiisha guntiga la iskaga dhigo oo la isku eegin waxa weeye wadada maanta aynu dhagax dhigayno ama aynu dhisayno waxa cid walba ku faa'iideysaa haday xitaa la ganacsi noqoto ummadda reer Soomaaliland la gudiyo dibadda ay ku faa'iidaan waxaanu joognaa maanta Balle Cabane dadkan deegaanku shakhsiyaad kamid ah Ilaahay raalli ka hadi ayaa wadadan abaabulkeeda hore u galay nin waliba inuu fadhiga ka kaco oo waxa uu hayo oo kaga qayb qaato ayaanu baaq ugu dirayna war arinta hadaynaan maanta boardka Ilaahay idamkii muddo dhaqso oo dhow waxaan arki doonaa iyadoo daamirku saaran yahay hadaynaan u dhawar adeegin niyo fog iyo higis fogna ayna yeelan waxba inoo qabsoomi maayeen arintaasi waa meel muhiim ah waa dhul biyo kala xidhaan xiliyada roobabka waa arin aad iyo aad loogu baahan yahay dhulka kale waaba la marmari karaa waa dhul lafa anagu xoolaha soo ururinayna waanu shaqaynaynaa waxa wadooyinka lagaga shaqeeyo waynu garanaynaa waa iska roga waa cagaf waa lacag intaba nin walba reerkiisa laga yaqaan wuxuu ka keenayo waxa kale loo baahan waxa weeye in la arka maanta in reerkii wadadan deegaankeeda ka soo jeeday oo u dhan inay halka ka wada hadleen marka nin walba ninkaad garanaysan waad garanaysaa in wadada laga soo qayb galo tii saddexaad mid way dhamaateen ka soo baahantay shaqo u baahantay waa dawgii cadda midna way socotaa waa wadada Allah baday tagta tayna waa tii saddexaad weey waxaan ahaa muxuu ahaa runtii gudidii muxuu ahaa dawga cad maalintan dawga cad muxuu ahaa dhagax dhigaynay wax weyn bayna la ahayd oo buuray runtii la ahayd Ilaahay baa runtii noo fududeeyay anagu hadaa nahay gudidii aad u magacowdeen runtii Ilaahay wadadani waxba akhrimayna runtii laakiin haddii aan ficil lala imanin hada waxba inoo qaban maayo degmada Balle Cabane waxaan leeyahay hadaynu waynu dhanahay maanta deegaankeedii baa aan cid ka maqnayn ummadana waynu qayshanaynaa wixii Soomaaliland iyo wixii dabad ku maqan waxay la tahay inaynu xoog saarno afka un ma in ficil la sameeyo saddex shay waa masaajid waa ceel laga cabo waa wada dad muslimku maro oo dadweynaha loo sameeyo saddexdaba ninkii wax ku darsada xasanaadkeedu leeyahay aakhira adduunyada iyo aakhiraba uu leeyahay duco helay ninka wax ku darsada arrinkeenan aynu nimid maanta halkii ugu wanaagsanayd ayaa laga qabtay waa wadada dhagax buur iyo isku xidha iyo Hargeysa oday hal dadaalo yaa laga halin mid walba waxa soo ururiyo ya mid walba si loo gurmado sheegay waxba ka akhrinayno xoolahan ururin doonaa ariga geela nimba waxa hayo Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in wadadaas wada lagu intifaaco ummadan marto ay noqoto marka wadadani waa tii sayla waa tii dacwalay waa tii maxaan ku raay garabis waa tii masallaha marka horta wadadani ma aha wado aan meel yaro kooban marta meel yaro waxay ahaan jirtay wadadu ay xiriirto laba gaari isku dhaafi karin maanta ma sha Allah waa 30 mitir weey dhan walba hirgelinta jidkan ayaa waxay fududeyn doontaa isku xidhka bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo degmada Balle Cabane oo ka tirsan gobolka Hawd waxaanu jidkani muhiimad weyn siinaya bulshada deegaankaasi ku dhaqan oo u fududeyn doono isu socodka magaalada Hargeysa iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd